nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam hadduu xadiisku sugan yahay kayisku qofka caqliga badan leh waa qofka geerida waxa ka dambeeya u xoogsada dadka inta badani waa dhoohani waa moogani xaqaa'iqda agtiisa taalla ee nafta bini aadamka iyo hungurigeeda uu og yahay iyo waxay raadacaynayso ee uu og yahay in geeriyi ka dambayso ee uu og yahay goor uu dhimanaya inaanu garanaynin ee uu og yahay qiyaamo iyo xisaab iyo rabbi is-hortaagi inuu ka dambeeyo ee uu og yahay in loo sii sheego la yidhi war ha dhimanin adigoo muslima mooyaane intaasoo xaqaa'iqa isagoo og ayuu haddana bini aadamku haafil yahay hafla سأوجد بقى إلهي مؤمنين تيسقوا الله هذي وحليه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ألم يأني مهاني قارن باللي مهاني دعن كوا مؤمنين تاهي إن وقت قارن قلب قودوا إلهي ذكر سوخ شوعه iyo waxa xaq lagu soo dajiyay waqti ay waantoobaan wali miyaanay gaadhin baa la leeyahay dadka muuminiinta ah man kana yuriidu alxayaata addunya ba ilaahay man kana yuriid alxayaata addunya wa ziinataha ninka doonaya adduunka noloshiisa iyo quruxdeeda hadda u fiirsa erayga iraada baa laga cabiray man kana yuriid baa la yidhi ninkii doonaya nolosha adduun iyo quruxdeeda nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wixii ay shaqaystaan adduunka waa siinaynaa wahum fiiha laa yubkhasuun lagamana nuqsaaminayo laakiin ulaa'ika aladiina laysa lahum fi laakhirati ila annaar waxabita maa sanacuu fiiha wabaطilu ma kaanuu yacmaluun laakiin kuwaasi baa ilaahay leeyahy waa kuwa aan aakhiro waxba ku lahayn naar mooyaane wax kale aakhiro ma leh waxay shaqeeyeenna waa la buriyey camalkooduna waa baatil yacni adduun buu u noolaa adduunkii wuxuu ka calaf qaaday buu leeyahay aakhiro mar haddaanu ku xisaabtamin aakhiro goormaad ku xisaabtamaysaa marka wax kastoo aad haysato intaad aakhiro qabadsiisaa ay kaala qurux badan tahay intaad adduunka ku hayso firaaqadaada ka faa'iidaysa buu nabigu leeyahay intaanad shuquloonin dhalinyaradu inta badan waxay dhahaa firaaqada xagaynu waqtiga ku soo dilaa maanta waa cimrigaagii qayb ka mid a ayaad leh xaggaa ku tuuraa waqtiga xagaynu ku dilaa xagaynu isku dhaafinaa maqaaxidaa la tegaya maanta oo dhan baa la sheekeynaya waa cimrigaagii ka mid a maanta oo dhan baa t v la daawanaya wax laga helayaa ma jiro noloshaada haddii la xisaabiyo intaad t v-ga daawatay intaasoo sannadood bay soo baxaysaa intaad maqaaxi fadhiday intaasoo sannadood bay ka warran haddii lagu dhaha intaa cimriga ha lagaa jaro maad aqbasheen 10 sano dhowr iyo 10 sano markay soo baxda maad aqbasheen markaad haysato se saad u isticmaalaysaa waad saydhinaysaa qofka bini aadamkii hantida ugu weyne uu haystaa waa cimrigiisa hantida ugu weyne aad haysataa waa waqtigan yar waqtigiibaaba waxaad ku qabatay daaya aad la'day meelaad ku disho xagaynu waqtiga isku dhaafina xagaynu waqtiga ku dilla xaga waa adigoo leh cimriga in ka mid ah xagaa ku tuuraa noloshaydii cimrigayga in ka mid ah khasaaraha aanan rabina xagaan geeya haddaad imka dhakhtarka tagto oo aad dadka weydiisa maa hiya umniyatak maxaad rajaynaysaa maxaad jeceshay inaad hesho maxay odhanayaan dadka dhakhtar ku jira inaan caafimaado soo maaha inuu ka kaco ka suuqa jooga haddaad ku tidhahdo oo bal caafimaadkaaga ka warran oo maxaan ku haystaa waaba gaajoonayaa buu leeyahy keerna umniya buu yey wuxuu is leeyahay ilaahu yaa marunku kiciya hadduu bilyaneer yahay wuxuu is leeyahay bilyanka haddii la yidhaahdo wadnaa lagugu bedelaya ma bixinaysaa wuu ogolyihi waar waan iska xoogsan doonaa nolosha dib baan u bilaabi buu leeyahay bal horta wixii lagu caafimaadayoon ha lagu bixiyo ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay isagoo nebi moxamed la hadlaya innaka mayitun wa innahum mayituun innaka mayit waad dhimanaysaa baa la leeyahay waa qasab iyaguna way dhimanayaan kuwan kaa soo hor jeedaana way dhimanayaan kullu man calayha faan waxaa nolosha kor saaran oo dhami dhammaantood waa dhammaanayaan baa ilaahay leeyahay wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhuld afain mitta fahum lkhaaliduun
adiga horta cid aan waaritaan siinay ma jirta baa ilaahay leeyahay adigu haddaad geeriyooto ma yagaa waaraya baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala idan haddaan nebi maxamed sayid alkhalq ilaahay doortay ilaahay ku leeyay waad geeriyoonaysaa waxa ka dambeeyana waa geeriyoonaya gaaladii ku jeesjeesaysay lahayd rayb almanuun baan la sugaynaa iyo waxaan baan la rabnaa ilaahay wuxuu yidhi adiguna waa dhiman iyaguna way dhiman cid hadhaysaa ma jirto adduunku waa daaru mamar waa dhul la marayo waa meel qof waliba uu soo marayo waad dhalatay dabeetana mara yar baa lagugu duuduubo waxaa la yidhi wiil baa reerka ku soo kordhay gabadh baa soo korodhay berrina waad baxaysaa mara kale intay kugu duuduubaan bay odhanayaan waa mayda xabaasha geeya adoo qaawan oo mara yar lagugu duuduubaad imanaysaa adoo sidii iyo mara yaroo kale lagaa raaciyay baad haddana baxaysaa idan waa mamar waa meel aad marayso waa jid bini aadamku uu muddo dhex soconayo waxaana ka dambeeyaba rabbi tilmaamaya la kulanka alle qof waliba inuu rabbi la kulmi doono in la xisaabin doono janno iyo naar inay ka dambayso saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy qul ina almowta aladii tafiruuna minhu fainahu mulaaqiikum geeridan aad ka baxsanaysaan ee aad ka rooraysaan waa idinla kulmaysaa hadday meeli ku xanuunto dhakhtar raadiya kan raadiya adduun waxaad haysato ku bixi waxaad rabtaa bal sidii aad maalma u sii jiri lahayd ayaad dadaalkeed ku jirtaa laakiin ilaahay wuxuu leeyahay waa mulaaqiikum waa idinla kulmaysaa maxaa ka dambeeya uma turadduuna ilaa caalimi alghaybi waashahaada fayunabbi'ukum bima kuntum tacmaluun waxaa laydiin celinayaa baa la yidhi caalimu alghaybi waashahaada allaha waxa maqan iyo waxa joogaba og allaha aan waxba ka qarsoonayn allaha og wax kastoo aad samaysay hadduu yahay waxaad qalbiga ku caqiidayso ku haysatay iyo hadduu yahay waxaad ficil ahaanba u samaysay wax kasta oo kaa soo baxay qofka bini aadamkaa rabbiga og oo weliba ogaan qura maaha fayunabbi'ukum bima kuntum tacmaluun baa ilaahay leeyahy oo idin warrami doona waxaad samayseen oo dhan kullu nafsin daa'iqatu lmowt wainama tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamah faman zuxzixa can الnaari waudkhila aljanna faqad faaz wama alxayaaةu اdunya ila mataacu اlguruur naf waliba geeriday dhadhamin baa ilaahay leeyahy kadibna wixii aad shaqaysateen baa laydiin oofinaya laydiin dhammaystiraya ninkii naar laga durkiyo ee janno la geliyo kaas baa liibaanay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala waxaa layna faray arrinku mar hadduu caynkaa yahay inaynu amalka soo gaabinno adduunka rajada aan ka qabno iyo waxqabadkiisa adduunyo ku saabsan inaynu soo koobno geeridana inaynu xoog u xasuusanno ilaahay la kulankiisana inaynu xasuustiisa badinno saa awgeed baa ilaahay wuxuu leey yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu اllah xaqa tuqaati walaa tamuutun ilaa waantum muslimuun war kuwa iimaanka laga helayow ilaahay rumeeya kuwa iimaanka laga helayow alle cabsidiisa badiya itaquu اllah ilaahay ka cabsada oo ha geeriyoonnina baa la yidhi ha geeriyoonnina ilaa waantum muslimuun idinkoo muslima mooyaane oo ha geeriyoonta miyaynu isu haynaa wakhtiga la geeriyoonayo kaama haysid laakiin maxaa lagaa rabaa inaad isu hayso inaad islaamnimadan laasimtid wakhtiga geeridu imanaysa garan maysid maxaa waad dhiman ma barraad dhiman ma bil baad sii joogi ma sannadaad joog garan maysid laakiin waxaa lagu yidhi geeridu ha kuu timaado adoo diyaara adoo muslima oo ilaahay isu dhiibay geeridu ha kuu timaado walidalik baa awraadda nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ina baray waxaa ka mid ah habeenkii markaad seexanayso inaad isa sii dhiibto tidhaahda ilaahu naftatan haddaad qabatana waxa aad dadka saalixiintaas aad u faxfadha ilaahu haddaad soo celisana
يعني واحد كنت لقليسا ورد قرا الخريسة معني سوى حويان وصيحنا يا سجران ما ينا سوق عدونه marka rajada waagu inuu ku bariyo doono baad meel iska dhigtay waa wardiga inuu akhriyno markaynu seexanayno marka aad soo toostana wardi kale la yiraahdo akhriyo ah ilaahay inoo leeyahay alxamdulilaahi alladii axyaani bacda ma amatani wa ilayhi nushur ilaah dib ii soo kiciyaan ku mahadinaya ilaahu jaanis baad siisay baad leedahay habeenkii markaad seexanaysana waxaad leedahay ilaahu naftan haddaad qabatana u naxariiso haddaad soo celisana saalixiinta waxaad ku ilaalisa ku ilaali haddaad soo toosto aragto inaad waa kuu baryo aad indhaa kala qaadayna waxa lagu yidhi waxaad tidhaahdaa ilaahu adaa mudan adaa ammaanta leh adaan kugu mahadinaya geeri dabadeedii soo nooleeyey idan waxaa la tilmaamaya qofka muslimka inuu diyaar noqdo markaad sii seexanaysana geeraad diyaar u ahayd markaad soo toostayna waxaad u arkaysaa jaanis aad camal ku siiso ku samayso in lagu siiyey idan kaa wardi ka dhiga baa lagu yidhi haddaynu awraadaynu akhrino habeenkii markaynu seexanayno markaynu soo toosno aynu fahamno waxaynu garanaynaa in layna leeyahay istaciddu war diyaar noqdo oo waa walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun dadka inta badani waa dhoohani waa moogani xaqaa'iqda agtiisa taalla ee nafta bini aadamka iyo hungurigeeda uu og yahay iyo waxay raadacaynayso ee uu og yahay in geeriyi ka dambayso ee uu og yahay goor uu dhimanaya inaanu garanaynin ee uu og yahay qiyaama iyo xisaab iyo rabbi is-hortaagi inuu ka dambeeyo ee uu og yahay in loo sii sheego la yidhi war ha dhimanin adigoo muslima mooyaane intaasoo xaqaa'iqa isagoo og ayuu haddana bini aadamku haafil yahay hafla hafladu waa dhoohani waa waxay ahayd inaad xasuusato la ilaabayo walidaalika baa ilaahay nabigiisii wuxuu ku leeyahay waandirhum yowma alxasra waandirhum yowma alxasra id qudiya alamru wahum fii gafla wahum laa yuuminuun waxaad u digtaa oo uga digtaa oo ugu digtaa yowmu alxasra maalinta calaacalka maalinta tiiraanyada iyo murugada uga dig bari markaad geeriyooto rabbi irjicuuntaa badan doonta ilaahu jaanisna sii ilaahu iceli waxaa la tilmaamayaa mashkiladda taaganay inay tahay maalintaa aad hadhow dib u murugoon doonto dib u tiiraanyoon doonto uga dig baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala haddaba ayuha alaxiba maxaa keenaya inaynu haafiliin noqonno maxaa keenaya inaynu tuululamal rajayno inaynu weligaan noolaanayno inaad tilaada kollayba waad ninka dhallinyaradii wuxuu isleeyahay kollayba lixdanka iyo horta waad gaadhi doontaa ka lixdan joogaana wuxuu isleeyahay malaa kollay ilaahay ilaa siddeetanka sagaashanka waa ku gaadhsiin doonaa idan dadku rajo qabaa uun xagga hore in wax ku hadheen maalmaha dambe kama gedisna maalmahaagii hore kuwaad shalay soo martay iyo kuwa hadhay waa isku mid maanta haddaad shaqaysan kari weydo barrina waa adagta inaad shaqayso bal mar kastoo aad da'i kuu sii korodho waxay u badan tahay in daalka iyo cajsiga iyo wahsiga iyo tamaryaridu kugu sii kordhi doonto inta badan dadku marka wuxuu dantiisa gartaa goor aanu fulin karaynin goor aanu waxqabad lahayn intuu waxqabadka leeyahayna waa haafil saa awgeed hafladan waxaa keenay tuululamal rajo aad ka qabto bal horta kollayba waxooga baad noolaan doontaa hadhow baad toobad keeni doontaa kan rabbigii caasinaya ee maanta cisyaanka samaynaya woogii waxaanu wadaa inuu cisyaan tahay inuu ama zina tahay ama khamri tahay ama been tahay ama xaaraan tahay ama boob tahay ama dhac tahay ama qish tahay ama dulmi tahay wuu ogyahay waxa kanuu samaynayaa inay xun tahay laakiin wuxuu isku waaninayaa saa dambaad toobad keeni barraad ilaahay uu soo noqonay barorta qoladan iska dhici saa dambe watakunuu min bacdi qowman saalixiin tii ilmo nebi yacquub walaalkood bay god ku sii wadaano waxay leeyihin aan dilloo god ku ridno haddana waxay leeyihin gadaashi baynu dad fiican noqon doonaa isaga gadaashi ayaynu soo hagaagi doonaa
إلهي مركا وحين ليه إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا قيرد أي قيامها هي وحا كان ضمبايا إيه وحفق بي واركان با إلهي لي أنه نبا إلهي لي وحدوبا واركينا وأمل كان يرجادا دير إيه وقت ولا ديري ساو قيد با إلهي قال دي وحولي ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون اسكدا با ربي سبحانه وتعالى ده حال لو دينيا هاسكا عنان با ليري ملذات الحياة عنضة وحنف لها مودان وهاسكا قرى حيستانا كنت مطعان ويلههم الأمل فسوف يعلمون وهم مشغولية با إلهي لي أملك هم مشغولية أملك رجقب كاسي هم مشغولية لكن ربي يوحي لي سبحانه وتعالى فسوف يعلمون سيمان دنبه وقت دنبه أي فهم دونان إذن أيها الأحبة قصر الأمل شرعي وكو أمانيه inaad rajada soo koobto waa ammaan waayo waxay keensanaysaa inaad xoogsato oo maalan maanta haddii lagu yidhaahdo berraa lagu dilayaa berrito ayaa lagu dilayaa waxaad soconaysaa bal maanta wixii aad qabsan karta un haatan sii qabso idan inaad amalkaaga soo koobtaa waa ammaan inuu kula dheeraado وطول الأمل أدرج دير سيقا دانا مذموم بيكوتي قرآنك وحي كوتهي وحان أمانين ولذلك با إلهي وحو قرآنك كليه أفرأيت وحرب إليه سبحانه وتعالى أفرأيت إن متعناهم سنين بل كورن با إلهي ليه سبحانه وتعالى إن متعناهم سنين دادكن هدانو سنة دور راحين هدي عمري قبل الله ديريو ثم جاءهم ما كانوا يوعدون عمري قبل هدي الله ديريو لكن كذب وإيما دوحي الله يبوهي ما غرى عنهم ما كانوا يمتعون با إلهي وحبك ما في الله كدق مايو وحي أي كسر راحيستين ودم وحبا نقول ميسو يعني وحبك بتشران با إلهي ليه ساوجد با إلهي دولو ما يبغوا حكوت المامي ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون إلهي ساقو يهود كورميا وحليلي وهذا هلي دونتا يقو كوا أغو إلى بدن أغو شعيل بدن نلل على حياة أيا كانت على حياة ولا نكري نلل إنه تشرون كوا وتشعيل بدن يهودية أنت مشركين تابدك الدون تابا إلى هيلي متكود وحو تشعلي يبا إلى هيلي كن صندود إن لنوليه لكن إلهي وحليه سبحانه وتعالى كن سنة وحبا ماها وما هو بمزحزحه من العذاب كن سنة عذاب كاعلين بيس وبريتو كن سنة بريد أمانيسا سوقت با إلهي مؤمنين تسوق الله هذلي وحليه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ألم يأني مهاني قارن باللي مهاني دعين كوا مؤمنين تاهي إني وقت قارن قلبي قودوا إلهي ذكري سوخ شوعه يوحى حق لغو سودة وقت أيوان توبان ولي مهاني قارن باللي دادك مؤمنين تاهي وأنا لمد نقوم با إلهي سيدي كوي إيجا كهر يا أهل كتابك أها قرآنك وحيابا بدنو إلهي كوي كتبت اللسيين كهر يلقو عيبيي وإنو الصبين دا أمان نقوم مايا وتجربة بشرية أي الله ينسو نقلي تاريخه وعمله بني آدم كوكو عبرقاته
tajaaribtii dadkii hore sidii kuwii kitaabka la siiyey ee wakhtigu uu ku dheeraaday ee dabeetana qalbi engaga qaaday baa ilaahay leeyahy wakhtigii ku dheeraaday waxay ka dhaxleen waa qalbi engeg sida ogeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inooga digayaa uu leeyahy laa yazaalu qalbu lkabiiri shaaban fi inayn xadiidka bukhaari kama zuulayo qalbiga qofka weyni laba dhallinyar buu ka ahaanaya yacni waxa weeyaan qofku waa gaboobaya wax badanna wuu ka gaboobaya ma awoodi karo laakiin laba weli waa dhallinyaro yacni laba baa la shay buu nebigu tilmaamayaa ninka weyn iyo ka yari isku meel bay ka taagan yihiin oo waa maxay labadani xubu dunya wa tuulu lamal buu nebigu yidhi adduunye jacaylka adduunka marna lama naco adduunka iyo jeclaantiisa iyo noloshan iyo jeclaanteeda bini aadamku maftuur buu ku yihi laakiin waxaa laynoogu talagalay inaynu nafta rabbayno oo aakhiro jacaylkeeda ku bedelano iyo tuulu lamal inuu rajo ka qabo uun waad sii noolaan doontaa idan ayuha alaxiba alamalu fi dunya muhlaka adduunka rajadiisan dadku ay sii qabaane tirada badan leh waa waxa lagu halaagsamo aakhiro rajadeeda ayaa raxmo ah afaman wacadnaahu wacdan xasana fahuwa laaqiih ilahay wuxuu leeyay miyay siman yihin kii aanu u yaboohnay yabooh fiican oo la kulmi doona yacni aakhiro u xoogsaday oo rabbina janno u ballan qaaday oo dabeetana la kulmay kaman matacnaahu mataaca alxayaati اddunya uma huwa yowma alqiyaamati min almuxdariin kaa iyo miyay siman yihin baa ilahay leeyay midaan adduunka waxoogaa ku siiyey waa adduunka inuu ku bidhbidhsado la siiyey aakhiro laakiin kuwa naarta la xaadirinaya ka mid ah labadaasi miyay siman yihin yani ilahay wuxuu isu kan dhinac dhigayaa nin adduunka waxoogaa ku helay sulto iyo lacag iyo waxoogaa inta bini aadamku uu raadceeyo uu ku fahno oo adduunka intii uu noolaa loo bidhbidhiyey laakiin maantuu godku galo naartiisu bilaabmayso adduunka hadduu 50 sano 60 sano 70 sano wuxuu bidhbidhsadaba hadduu dhammaysto oo uu cadaab bilaabo waxaa hore waxba kama jiraan kaa iyo miyay siman yihin baa ilaahay leeyahy subxaanaه wa tacaala kii adduunka aan wax badan ku hayninba laakiin aakhiro yimi isagoo rabbigii rumaysan wixii alla u yabohayna lagu abaalmarinayo in rajadeennu dheeraato aynu yididiiladan tirada badan la qabno maxaa keena waxay culammadu yidhahdaan laba shay baa keena midi waa xubu dunyaagaynu sheegnay waa adduun jacayl oo qofku waxa uu la nool yahay la noolaado ee uu markaa hayo waxa maqan inta badan ma dhaafsado bal tuxibuuna alcaajila watadaruuna alaakhira tan hore degdegta badan leh aan la nooshiin ayaa jeceshiin baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala tii dambe ee lagu waarayeyna waa ilaabaysaan idan xubu dunya ka labaadna oo adduunkan isaga jacaylkiisa man kaana yuriidu alxayaaةa اddunya baa ilahay yidhi man kaana yuriid alxayaaةa اddunya waziinataha ninka doonaya adduunka noloshiisa iyo quruxdeeda hadda u fiirso erayga iraada baa laga cabiray man kaana yuriid baa la yidhi ninkii doonaya nolosha adduun iyo quruxdeeda nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wixii ay shaqaystaan adduunka waa siinaynaa wahum fiiha laa yubkhasuun lagamana nuqsaaminayo laakiin ulaa'ika aladiina laysa lahum fi اlaakhirati ila الnaar waxabita maa sanacuu fiiha wabaطilu ma kaanuu yacmaluun laakiin kuwaasi baa ilahay leeya waa kuwa aan aakhiro waxba ku lahayn naar mooyaane wax kale aakhiro ma leh waxay shaqeeyeenna waa la buriyey camalkooduna waa baaطil yacni adduun buu u noolaa adduunkii wuxuu ka calaf qaaday buu leeyahay aakhiro mar haddaanu ku xisaabtamin aakhiro goormaad ku xisaabtamaysaa marka wax kastoo aad haysato intaad aakhiro qabadsiisaa ay kaala qurux badan tahay intaad adduunka ku hayso
wakhtigaad ku bixisay aakhiraad ka jeceshay wakhtigaad adduunka ku bixisay cilmigaad aakhiro ku bixisay baad ka jeceshay cilmigaad adduunka ku bixisay hantidaad aakhiro ku bixisay baad ka jeceshay hantidaad adduun ku bixisay idan qofka kani aakhira uga muhiimsan ama cagsigu bal tu'thiruuna alxayaata addunya waalaakhiratu khayrun wa abqaa baa ilaahay yidhi waxaad door bidaysaa nolosha adduunyo nolosha adduunyaad door bidaysaa waa kii nebigu lahaa calayh salaatu wasalaam waar midkeen baa xoolaha carruurtiisu xoolaha qofka dhaxlaya agtiisa lagaga jecel yahay xooluhu isagu leeyihi yani wuxuu nebigu tilmaamaya waxaad la sii baxdayna inay waxaagii yihiin waxaad ka tagtayna de inaad ka tagtay cid kale ku tasarufi doonta idan adduunye jacaylku waa waxa koowaada dhibta keena waana wax laynagu itixaamay watuxibuuna almaala xubban jamma xoolaha xog baa u jeceshin baa la yidhi waa cala alfitra waa suu bini aadamku u badan yihi waxaa ilaahay ku tilmaamaya wainahu lixubi اlkhayri la shadiid xoolaha jacaylkooda waa ku adag yihi laakiin maxaa la tilmaamay aakhiro markay tahay waxaa la yidhi waa kuwa bixinaya iyagoo jecel abuurkaaga waa inaad xoola jeceshay waa saa ilaahay ku abuuray laakiin waxaa la tilmaamay haddana kuwa aakhiro waxgeysanaya inay maxay yihiin kuwa bixinaya iyagoo necab bay bixiyaan xoolaha maya isagoo xoolihii weli jecel ayuu bixinayaa saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya inay bixinayaan lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun baa ilaahay ku tilmaamaya ama ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu tilmaamaya inay masaakiinta iyo dadka baahan iyo kuwan wax siinayaan wayuطcimuuna الطacaama calىa xubih miskiina wayatiima waasiira ilahay wuxuu kaaga markhaati kacaya adoo bixinaya hadda inaad adduunkan jeclayd laakiin inaad naftaada ka goyso aad ku tala gashay inaad aakhiro u horaysiiso shayga labaad ee amalka dheerayntiisa keensada iyo adduun jacaylka kani waa aljahlu bay yidhaahdaan kow aljahlu billaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay waad garan weydo ilaahay haddaad dhab u garanayso dhab baad u weynaynaysa haddaad dhab u garanayso dhab baad awaamirtiisa u raacaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadkiisa haddaad baratay inuu kariim yahay hani yahay xakiim yahay caliim yahay khabiir yahay sifaadkaasaad la dhaqmaysaa idan waxaad noqonaysaa qof rabbigii toos ugu xidhan haddaad si aanad garanaynbo gaalka noqoto ama haafil noqoto ama jaahil noqoto wamaa qadaru llaha xaqa qadrihigaad ku dhacaysa kuwii la yidhi alle ma weyneeyaan weynidu xaqu leeyahy waxaa la mid ah aljahlu bixaqiiqati dunya adduunka haddaanad xaqiiqadiisa garanaynin ilahay in badan buu qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya kamahali kaytin acjaba alkufaara nabaatuhu uma yahiiju fataraahu musfar wuxuu la mid tahay baa la yidhi adduunkani sidii roobkaa da-ay ee meeshu yaro cagaarantay ee hedhowna baabaaday waxaa ilaahay inoogu tilmaamaya inay tahay un tafaakhur iyo takaahur iyo caynka kan waxaa ilaahay inoo tilmaamaya alhaakum الtakaaثuru xatىa zurtum اlmaqaabir kalaa sawfa taclamuuna uma kalaa sawfa taclam xaqiiqaة اdunya markay kaa libidho iyana waa wax keena dhibta aynu ka warramayno waxaa la mida xaqiiqaة اlaakhira markaad garan weydo qiyaamaha 50 sannadood meel la taagnaanayo 50 sannadood qiyaas meel la taagnaanayso lagu xisaabayo basharka oo dhami taagan yihi khalaa'iqdoo dhami waxaad dembi gashay ee arkayso lagugu markhaati furayo 50 sana bacdahaa janno iyo naar iyo siraad iyo xawd iyo waxaasoo dhan haddaad ilowdo qofku hadduu mahlakada xasuusan yahay maalan haddii lagu yidhaahdo kayntaa libaax baa ku jira aad ku qasbantay inaad kaynta ka tallowdo adigoo aan libaax ogayn oo iska laafiyoonaya miyaad maraysaa mise waxaad maraysaa adigoo labada hareerood ba eegaya oo hor iyo gadaal iyo sanqadh kasta jabaq kasta kabahaagu kuu baxayaan ta kala daayay
adoo wada dheg ah oo wada il ah oo soo jeeda oo aan luloonaynin oo riyoonaynin baad maraysaa waayo meesha in mahlaka ka jirta baad ogtay ninka aakhiro ogi waa caynka aakhiro iyo waxa dambeeya ninka ogi waxaa waagu u baryayaa isagoo soo jeeda wax maqlaya wax arkaya eegaya dunida ku xisaabtamaya maxaa rabbi ogolaya maxaanu se ogolay maxaa lagu badbaadaya maxaan se lagu badbaadaynin isagoo xayaya qalbi nool wata ayuu waagu u baryaya sidaa ogeed الجهل بحقيقة الدنيا وبحقيقة الآخرة والجهل بعظمة الله سبحانه وتعالى الجهل بقى أساسه أمل كان اسكندر حب الدنيا بقى أساسه سيدا أوجد علماء في عربي واحد كان صارا واحد إذا ده أمل يا طمع يا رجاء واحد هذا واحد بعيد كأن لقارين هنقريين تسامل بالله إلى هذا واحد قريب كأن لقاري كرنا هنقريس طمع بالغت الماما وحاول حيانا بينادين هنقريس رجاء بالله إلى هذا ولذلك إلهي نحرستي سويني النودة هي نبي إبراهيم مركو التلمامي يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إذن أيها الأحبة نبي عليه الصلاة والسلام الدون بصوق علي نبي إلهي امتحانات كلهم مري فقر وصامري يا وحلان عبسي وصامري iyadoo laga xoog badan iyo saxaabadiisa la leeynayo soo maray isagoo xoog badan buu soo maray isagoo ciidamadiisu ay qabsanayaan dhulkii laga soo saaro soo maray isagoo hantidu intay soo gashay ku wax weydiistay laba buurood dhexdood xoolo daaqaya nin qura kula kaxaysu soo maray oo intuu tolkii u tago uu leeyay nabi maxamed wuxuu bixinayaa cataa man la yakhsha al-faqr midaan faqriba ka baqayn sidii buu wuxuu bixinayaa islaam oo xoolo soo helaysaan uu tilmaamayo نبي عليه الصلاة والسلام مع أنه صحابة الله نولد وحيسته هدنا وحضور بدي الزهد يسوي الدور بدي زهد جو حويان أدون كوينا نقلب جاك ديني قعنت هذا الدواء هدوك سوق لنا قعنت هذا يروح يشرو لكن نلش عادي كوك جارة إن الزهد جا دورته ولذلك يا إلهي سبحانه وتعالى مركو نبي الزهد قد دورتي ملك با إلهي وصادري دبتنا وحا لغو يري ما وحا تربطها نبي أما الرسول بقرين النقطة بس عبد الرسول أم دونيس جبريل باكو يري تواضع لله إلهي يسر لك نبي محمد وحو دورتين نقطة عبدا رسولا عبد الرسول كو وحا نبي كامركو دورتي هوينك برد باكو يرى أتكاتي biilkii iyo noloshii yara adkaatay dabeetana waxay warsadeen nabiga calayhi salaatu wasalaam in nolosha loo kordhiyo ilaahay wuxuu ku yidhi yaa ayuha nabiyu qul liazwaajik nabi allah waxaad haweenkaaga ku tidhaahdaa in kuntunna turidna alxayaata addunya waziinataha fatacaalayna umatickuna wasarixkunna saraaxan jamiila haddaa nolosha adduun doonaysaan waan idin siinayaa laakiin anigu ku jiri maayo waan idin sii daynayaa dheh nolosha adduunya dhaldhalaalkeedu wax idinla weyn hadduu yahay وايد سين وهي النمعة وهليسان لكن مع ذلك وين السيدينية هدا إلهي يا الرسول كيسيا مال أنت آخرة دون إسانا أجر وين بهلي دونتان واحد دورتين إلهي يا الرسول كيسيا مال أنت آخره ولذلك ما يسقو مال ساحري وصلي وكو ساحري دبر كيسا كويالو صلي قوات غانين درمده مركا لغو ساحري أن وحبت شركاك كحيقين هذا واحد سوق عيسى يسوي شركاية صور كاسي وكسوري عمر بارك وحكوير يا رسول الله لو اتخذت فراشا أوثر من ذلك من هذا ما سميست فراش كم كو يرنا مكا مالك يرجل إحسان الله الرسول كيس يوم تاحتي عمر نبي وحكوير وما لي وللدنيا وعمر وارجي يا دون حنا كلا وما لي وللدنيا أيكو علي وما للدنيا أنا يأدون محانا كلا والذي نفسي بيدي مهما أنا الله نفته يدو قعنتي سكوتشرتا كل أرتيب النبي قولي تصالها هي تصالها الدموع هي
nin socoto ah oo maalin xagaaya geed hadh la soo maray oo hadhsaday saacad maalinta ka mida oo dabeetana ka tegey tusaaluu nebigu bixinaya waxa weeyaan calayhi salaatu wasalaam maalin cadceed kulayl jiro oo xagaaya haddaad safar gasho cadceeddu markay kugu yaro kululaato aad geed hadhsato balaankaaga geed hadhsigani muxuu yihi is odhanaysaa geedkan daar yaroo fiican ka dhisaad maanta hadhsatide boqorrada kibray maanta saasay yeelaan guri baad arkaysaa la dhisay oo la yidhaha boqorku sanadkii buu maalin yimaadaa mid boqorradan carbeed ka mid ah waxaa la tilmaamayey gurigiisu 365 qoloo la seexdo hurduuleeye oo loogu beegay maalinba cadceeddu intay dhaqaaqayso kijada iyo musqulaha ku yaallaa 700 ah waa bini aadamku si uu u nool yahay nebi maxamedna wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam nin safaroo geed hadhsaday ayuun baan la mid ahay buu leeyahy intan adduunka aan joogaaba geed la hadhsaday kama gedisna idan ayuha alaxiba xalku waa qasru اlamal xalku waa inaynu yididiiladan dheer soo gaabinnaa xalku waxa weeyaan inaynu aakhiro u diyaar garowno waa xaqiiqa maalin aan fogeyn waa lagu qaadi uun inaynu diyaar noqonno saa daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam nin saxaabadiisa ka mid oo dhallinyaro ah cabdillaahi bnu cumar waa nin dhallinyaro ah shaab ah waaya cabdillaahi dee waa ninkii qaswata uxud laga reebay la yidhi adugu waxaa tahay weli maad qaangaadhin qaangaadh la'aan baa looga reebay dagaalka markaa nin aad u dhallinyaro weeyaan ninkaa dhallinyaradaa buu nebigu la talinaya intuu garabka qabtay buu nebigu wuxuu ku yidhi kun fi dunya kaannaka gariibun aw cabir sabiil haddii warka nin weyn lagu odhan lahaa waxaad odhan lahayd dee waa nin warka dunida soo dhameeyey oo waxaa la leeyahy war aakhire adigu kollay cimrigaagii qaadataye aakhire usii diyaargarow baa lagu yidhi laakiin ma aha waa nin iminka soo korayo hadda qaangaadhay ama qaangaadhaya wakhtigaa ku jira nin wakhtigaa ku jiruu nebigu wuxuu leeyahy kun fi dunya kaannaka gariib adduunka waxaad ku ahaataa sidii qof stranger ah qof meel aan safar ku yahay soo galay aw cabir sabiil ama qof waddo goynaya adduunka sidaa ku noqo qadiyaddaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wiilkaa yare cabdillaahi bnu cumar ibnu alkhadaab oo uu sheegay wuu fahmay wiilkaasi waa weyleeyey saxaabaddu waxayna iga gedisaneyd waa taa waxa loo sheegaa bay weyleynayeen way fahmayeen kadib cabdillaahi dadka markuu la dardaarmayo wuxuu ku odhan jiray idaa amsayta falaa tantadir الصabaax وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك إمام البخاري soo saaray wuxuu dadka ku odhan jiray ibnu cumarna war hooy haddaad garabaysato waa beriga ha sugin iminka aakhire u sii diyaar garow waagaa kuu beryi doono berrina waad sii shaqo tegi doontaa oo halkii baad arrinka ka sii wadi doontaa taa ha sugine xisaabta waxaad ku dartaa caawa hadday kaa baxdo maxaa xala falaa tantadir الصabaax wuxuu ku yidhi haddaad waa berisatana galabnimada ha sugin xisaabtan caafimaadka intaad qabto bukaankaaga u sii qaado dadku markuu dhakhtarka gale xanuunsado haddaad imka dhakhtarka tagto oo aad dadka weydiisa maa hiya umniyatak maxaad rajaynaysaa maxaad jeceshay inaad hesho maxay odhanayaan dadka dhakhtar ku jira inaan caafimaado soo maaha inuu ka kaco ka suuqa jooga haddaad ku tidhahdo oo bal caafimaadkaaga ka warran oo maxaan ku haystaa waaba gaajoonayaa buu leeyahy keerna umniya buu yey wuxuu is leeyahy ilaahu yaa marunku kiciya hadduu bilyaneer yahay wuxuu is leeyahy bilyanka haddii la yidhaahdo wadnaa lagugu bedelaya ma bixinaysaa wuu ogolyihi waar waa iska xoogsan doonaa nolosha dib baan u bilaabi buu leeyahay bal horta wixii lagu caafimaadayoon ha lagu bixiyo laakiin haddii la yidhaahdo 100 kun ka bixi waar xooluu dhaqdhaqiguma soo gelin buu leeyahay kunkaa qaata saxanka maaha qof gaara maaha waa dhammaanteen waa saa inuu haddaanad adigu naftaada wax ka bedelin waa saad u abuurantay saa daraaddeed buu ibnu cumar wuxuu leeyahy waar caafimaadka intaad ku jirto u sahay qaado bukaankaaga berri inaad caafimaad qabi doonto garan maysid
عوض عافمات قبتا وتكن كرتا وردي كرتا والنبي صلى كرتا عليه الصلاة والسلام واحد دومتات سمين كرتا لكن بري إن دويسي سكري وإذا ما بدعي كرتا جماعية جماعة إن تقاري وإذا بدعي واحد استدعي كرا ومن حياتك لموتك جاردا دوسيق هذا بيري محي نلش هذا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث كسوغا وحوت المامي isagoo nin saxaabiya waaninayo wuxuu ku yidhi war shan qaada buu ku yidhi dhallinyaronimadaada ka faa'iidayso inta aanad gaboobin caafimaadkaaga ka faa'iidayso inta aanad bukoonin waxayntaada qaninimadaada ka faa'iidayso inta aanad faqrinin inta badan dadku markuu xooluhu dhaafaan buu is idhahdaa haddaad wax ka bixin lahayd haddaad tolkaga wax ka tari lahayd haddaad aakhiro wax geysan lahayd firaaqadaada ka faa'iidaysa buu nebigu leeyahay intaanad shuquloonin dhallinyaradu inta badan waxay dhahaa firaaqada xaggaynu wakhtiga ku soo dillaa maanta waa cimrigaagii qayb ka mid a ayaa leh xaggaa ku tuuraa wakhtiga xaggaynu ku dillaa xaggaynu isku dhaafinaa maqaaxidaa la tegaya maanta oo dhan baa la sheekaynaya waa cimrigaagii in ka mid a maanta oo dhan baa t v la daawanaya wax laga helayaa ma jiro noloshaada haddii la xisaabiyo intaad TV-ga daawatay intaasoo sannadood bay soo baxaysaa intaad maqaaxi fadhiday intaasoo sannadood bay ka warran haddii lagu dhaha intaa cimriga lagaa jaro maad aqbasheen 10 sano dhowr iyo 10 sano markay soo baxda maad aqbasheen markaad haysato si saad u isticmaalaysaa waad saydhinaysaa qofka bini aadamkii hantida ugu weyn uu haystaa waa cimrigiisa hantida ugu weyn aad haysataa waa waqtigan yar waqtigiibaaba waxaad ku qabatay daaya aad la'day meelaad ku disho xageen waqtiga isku dhaafina xageen waqtiga ku dilla xaga waa adigoo leh cimriga in kamid ah xagaa ku tuuraa noloshaydii cimrigayga in kamid ah khasaaraha aanan rabina xagaan geeya walidaalika nabigu wuxuu leeyahay firaaqaaga ka faa'iidayso inta aanad mashquulin qofku markasta uu sii weynaadaba mashquulkiisa badanaya waayo xidhiidhku bulshada la leeyahay ka badan ninka dhallinyarada ee xidhiidhku la leeyahay saadaradeed qofku da'diisu markastoo ay yartayba waqtigiisa oo dhan isagaa leh laakiin inta badan dhallinyaradu ma garato kama faa'iidayso qofku markuu sii weynaadabana yaa waqtiga kuu kordhiya buu israa 24 saacadood ba ku yaraada stress buu qaadaa suu leeyahay hebel la ballan baan la leeyahay xagga ballan baan ka leeyahay reerkiina xag buu sugaya qoladana waxan bay rabtaa idan nabigu wuxuu leeyahay war intaanad mashquulin firaaqada ka faa'iidee intaydan geeriyoon baa nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam nolosha ka faa'iidayso ayuha alahibba rajadan tirada badan leh quraanku wuxuu inoo sheegayaa inay tahay aaladda ibliisku uu bini aadamka ku lumiyo waa farsamooyinka ibliis adeegsado ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay ina aladiina irtaduu cala adbaarihim min bacdi ma tabayana lahum alhuda الشيطان سول لهم وأملى لهم بإلهي هو دين تكن نقضي يجوا هنونك أنتوا وعد هذا كذب شيطان كأوحو قرحيي الرجال يبى إلهي لي إذن وأملى لهم أمل كان داري وفرسمة الشيطان وضدك كل ميو نبي آدم حكو يدي مركو ربينو جات كعنه يعني وباهي بن آدم كو قبه ولذلك آدم بهالكاس على قال عمر قال قول يراني يا بالغير قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى جيت كوارتان كما كنت سابق يدي جيت هذا الله يكون عاصي سما كنت سما أورانين النبي آدم الله شيء جيت هداد عنته أدين بدن شريسه آدنيه أنتو ضليبين إن بدن شران ويشعلي لكن waxa rasmiga ah waxa weeyaan qofku inuu diyaar noqdo maxaa cilaaj ah arintan abuurkeena waxa cilaaj ah dhikrul maut wal aakhirah aakhirah xusuusteeda inaynu badino innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba ba ilahi dadku wax fog buu arkaya أننا وحدوبا وأرقنا أبو النبي أيو رب إليه سبحانه وتعالى نبينا وحلي عليه الصلاة والسلام حديث من أبي الدنيا وصوصار الشيخ الألباني حسب كتب المامي نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد ومضة دتك يدي هوري صحابة دي دتك يدي هوري وحي كبت بادين بو النبي يري يقين
ay ilaahay iyo aakhire iyo diinkooda yaqiin ku qabaan oo rumaysayna shaki kaga jirin iyo zuhdi adduunku aan hungurigiisa iska yareeyeen adduunya jacaylka oo ay zuhdi ka qaateen iyo yaqiin ay rabbigood iyo aakhire iyo wixii loo sheegay ku qabaan wayahlik aakhiru haadihi lumma buu nebigu leeyahy ummaddan inteeda dambena waxay ku halaagsami doontaa maxay bilbukhli waalamal buu nebigu yidhi gacanadayg dhabcalnimo gacanadayg qofka oo is idhaahdo adiga kuguma filla bini aadamku wax kasta oo is haysto ka dambayso buu ka sii baqayaa faqru ka cabsi qabaa aadaan waa caynkaa dabeetana nebigu wuxuu leeyahy ummadda dambe waxay ku halaagsami doontaa laba shay gacan adayg iyo amal rajo in shaa allah berrina waad sii noolaan doontaa sannadaa weli kuu hadhay wakhtaa hadhaye weli dhallinyaraatu shaydaanku ku odhan adiga weli kaama dhowada imkaad bilowdayba waa labaday ku halaagsameen buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidkii tirmidi iyo ibnu maaja warinayeen imaamu nawowina uu riyaadkiisa ku soo saaray sheekh albaanina dacfiga ku sheegayey macnuuse wuu saxiix yahay wuxuu tilmaamayaa alkayisu man daana nafsahu wacamila lima bacda almowt kayisku waa caaqilka waa qofka kasmada fiican nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam hadduu xadiidku sugan yahay kayisku qofka caqliga badan leh waa qofka geerida waxa ka dambeeya u xoogsada hubaal waxa ah inay xikmad saxiixa tahay geerida waxa ka dambeeya qofka u xoogsada caajiskuna qofka tamarta daran lena waa qofka naftiisu hawadiisa iska raacda watamanaa cala allahi lamaani yani ilaahayna uun in sha allah in allaha gafuuru raxiim rajadana iska qaba idan ayuha alaxiba إلهي وحين ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به يدي لدينا يا أمنيدينا يا وحسكر رجال إنسان أهل الكتاب يا إذن كتورا ما هبا إلهي مسلم كأيو يا كريستان يا يهود بالله قرنقي إلهي وحين إلا بدينا قلب الشاقة شدا الشاقة إنسان الرجال غبطان أركم معها إوام حي من يعمل سوءا يجزى به نولي بوحو شغا يستابوا لي يا رب لي ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها أراد كوي هراء وحالة المامي يريدون الحياة الدنيا وزينتها كوانا ونفس الشيء ومن أراد الآخرة آخرة نك الدونية قصدك سو آخرية ما أنتو آخرة دوريبو سكفر استي مايا حركة ينغنغ وكدري وسعى لها سعيها بإلهي شغل آخرة نقبطي آخرة شغل قاري إلهي وسعى لها سعيها بإلهي قفك آخر الرادعينية لوجه الله وحسمينية سعيه الله باهنانا لا إيمانية إسقوا مؤمنة فأولئك كان سعيهم مشكورا بإلهي كواسي وحي قبتين يسعي قودة وهلقها بالمرينية أيها الأحبة ما أنت وحاد قبان كرتوه يدبريو على علي سادر أدد ما أنت إن أدو الديار قرودة بحبون حديث إمام الطبراني إسناد حسن وكسو صاري شيخ الألباني صحيح ترغيبك وكو أرورنا يوحو النبي يقول عليه الصلاة والسلام بالبو صومر النبي مركزو وحو من صاحب هذا القبر وحباشني وحباشي كما رسالة دوا هبل فنندن تومي إذا حباشي أيو النبي يستلتا قوة حباشني وكما فهلو يقول حباشن هبل باكو جرا النبي يقول صحابتي انتو كجستو مركزو وحو ركعتان أحب إلى هذا من بقية الدنياكم بنبوه لبا ركعدود صلاة وتكدو أيام ما أنت نيكني كجعليي أدونك هيستار ودن نيكن هدي لا يراهدو أدونك ودن iyo laba ragcadood keeba dooranaysa laba ragcadood buu ka jecel buu nabigu tilmaamay yani xabaal dusheed buu nabigu ku wacdinaya saxaabadiisa waxaan u sheegayaa laba ragcadood marka la gaadho halkaas inay ka qiimo badan tahay wixii dunida la soo qabto dhan haddii amalku iska dheeraado oo diyaar garowgu yaraado oo dadku sidaa ku dhintaan calaacal baa ka dambayn doona yaa laytanii qadamtu lixayaati rabbi irjicuun
لعلي أعمل صالحا فيما تركت إلهنا بني آدم كو يقانا يوحو تلمامي ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه با إلهي وحكا عجب بدن بني آدم كطبع قيس هدي اللي علين لها با إلهي هل كي أمي كبلا بلا هنا غريب صومها من كان صهار كان نار يبلا هيدا شرتا مركو هل كان يمادا هدنا هل كي أمي بقى ميسي كرا هدو دي بلو عليا با إلهي هل كي أمي كميسي لهاي وهي فطرة الإنسان واتيئون لكن قفكو هدو خط تلقلو إلهي وحين إلي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وركوا إيمانك لغاها ليو ورا لك عبسد بري كيف فكر بالي نفي وحي بري ودقطي آخر واحد جيستي كائق با إلهي إذن أيها الأحبة علاجك هو هنا مسألة تانية وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ويلي أكثر من ذكر هادم اللذات بدي أبو النبي عليه الصلاة والسلام حصوصتان معانك كقوية معانك كقوية وقيرده روك قال هذا وحن أركي قال هذا ما على قيرده إلا قبره ملا فردان هدي قيرية وحالة وكالة ضريران وكاكا عيا إني إلا بان بيك جعليه ما جعلها إن حوالي يقيري يباب كأن دكتور ذاك قور رد ما جعل إني يصير له سيان بين ربان نبي نوح عليه الصلاة والسلام حصوص تقيري ده بديع وحصوص تقيري ده وحين نقونيسا ما كان نعاو مساجد كبحنا هذا ترى هذا بالعاوة هدي نفتو سون قوم ويدو تلو حقان قبر دوات حساب تمايس هذا ترى هذا ورنفتو حقاي قبر هدي بحضو هذا حساب تمي سيدا وقيد بالنبي وحولي عليه الصلاة والسلام قيرد حسوس تيدا بديع إذن أيها الأحبة أمل كتيرادة بدن له الدنيا شعيل كتيرادة بدن له غفلة تندتك كل عضي يهنا سيدا قال كو فكروا فكرين قال كو انت أصلا بأمو ما داير أدون إن قالوا كل الله أنتو آخر بي اللودو فأعجب dadka muslimiintii waxay u baahan yihiin iyagu aakhira xasuustaan dadka kalena inay aakhira xasuusiyaan nolosheen markaynu xisaabino inay aakhira boos ku yeelato maanta waxaan qabanayo inaan ku xisaabtamo aakhira maxaan geystay caawa markaan seexanayo inaan ku xisaabtamo waxaan soo sameeyey waagu markuu bariyey ilaa iyo gobolku intuu dhacayay ama waad hadlaysay ama mid hadlayaa degeysanaysay socanka maaha waagu markuu bariyay baynu hadalka bilownaa haddaanaad adugu hadlayna mid kaloo hadlayaa dhegaysataa markaad seexato bal xisaabiyo intii aad maanta maqashay ama ku hadashay imisaa kitaabka fiican kuugu qoran baad u malaynaysaa imisaad saladay baad ajar ka helaysaa imisaad se ajar ka helayna idan hadalkaagu warduu u badan lahaa haddii xisaabtakaagu badan yahay warku wuxuu ku kooban yahay oo naftayda iyo tiiniba ku waaninaya noloshan aynu israacinay aan ka gaabsanno macnaheedu ma aha yaan la xoogsanaya caynkan xoogso laakiin xoogsi aakhire ku geynaya xoogso markaad xoogsanaysa xalaal xoogso xalaashaas iyo cibaadaadkaaga iyo diinkaaga ku dhaafini ku talagalun caawa hadday kaa baxdo waxaad ilaahay la hortegi lahay aqwaasha salafka laga soo arooriyo haddaynu akhrino wakhtigu kuma filla laakiin aqwaal badan ba salafku waxay tilmaamayaan rag ku xisaabtami jiray salaadan salaadeeda inaad tukaneen anigu berri baa is yidhi ma ilaa berri midi wuxuu yidhi anigu ilaa berri kuma xisaabtama ilaa caawa waad noloshaad dheeraysatay buu ku yidhi anigu salaadan salaada ku xigta inaanan gaadhayn baan ku xisaabtamaa buu yidhi idan tanun baan si fiican isdhaahw tuko ilaa tii dambe lama hubo inaad gaadhi doontee hadduu arrinku saa yahay salaadaheenna way hagaagayaan salaad khushuuc lay noqonaysa haddaad se isleedahay kolley maalmaad sii jiri doontaa kuwa dambaad hagaajin baad iska dhaadhicin khaatimadaad fiicnaysiin doontaa ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu khaatimada khayr inoogu khatimo kuwii aakhiradooda ka fakerayna alla inaga yeelo inta aakhiro u xoogsatay adduunkana hilmaamin in rabbi inaga yeelo sala allahuma calaa muxamedin wala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin